qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa u mahadceliyay dawladda Soomaaliya iyagoo markaasina sheegay soo jeedintii ay soo jeediyeen in dawladda ay aqbashay isla markaana dib loogu furay wadooyinka magaalada Muqdisho. Haajir Cabduqaadir ayaa faahfaahinta warkan magaalada Muqdisho ka soo diray. kadib cabashooyin ugu yimid hay'adda tala soo jeedinta Soomaaliyeed qeybaha kala duwan ee bulshada kaas oo la xiriiray qaabka hay'adaha amnigu ay ugu sugayaan magaalada Muqdisho ayaa hay'addu waxa ay bilowday in ay madaxda qaranka kala hadasho sidii shacabka loogu dhimri lahaa wadooyinkana loo furi lahaa. Madaxweynaha ayaa hay'adaha amniga ku amray in muddo 24 saac wadooyinka shacabka loo furo waxaana magaalada Muqdisho ka dhaqan galay hadalka madaxweynaha. qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa u mahadceliyay hay'adda tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo madaxda kala hadashay furidda wadooyinka. xarunta soo jeedinta Soomaaliyeed aad iyo aad ay barnaamijkaas ugu dadaaleen ku hadalkiisa madaxduna inay ka aqbasho waa loo baahan yahay wadooyinka in loo furo habeen imaan anaga dad xoogsataa nahay dad reed masaakiinaha nahay burbur badan ayaan soo marnay marka waxaan u baahanahay in wadooyinka loo furo oo madaxweynahana uu hadal go'aankiisa oo hirgalo. halkan waxaan ugu mahadcelinaynaa xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed haddaan nahnay dadka xamaalatada ee ku shaqeysato bajaajka madaxweynahana gaar ahaan waxaan leenahay amarkii oo warkii oo ku hadlanay fariintiisa waana soo gaartay waxaan ka rajaynaynaa warkiisa inuu ka dhaweeyo insha Allah. aad bay u mahadsan yihiin xarunta tala jeedinta Soomaaliyeed oo sameysay ra'yi aroorin ku saabsan wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho taasoo dadka Muqdisho ku nool saameyn adag ku yeelatay. sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku mahadsan yahay taladii ay soo jeediyeen oo ka aqbalay kuna amray ciidamada in wadooyinka ay furaan isku socodka magaaladana mataqaana si hore oo ku soo laabto. inkastoo ay muuqato inay dhaqan gashay qayb ahaan go'aankii guddiga amniga qaranka ay ahaa in la furo wadooyinka xiran haddana waxaa xiran wadooyinka jidcadayaasha ee gala Maka al-Mukarrama. Haajir Cabduqaadir RTN TV Muqdisho.